قروحو هرمرا شقلا هرمودك أجر لي مركي تعا هجنوجو هادان هوشيتنا هجو هجنوجو هادان هوشيتنا هجو runtii waxay noo tahay maalin qiimo weyn leh inaynu halkan isugu nimaadno iyadoo aynu aqoon isu weydaarsanayno iyo istareensiin istoosin arrimaha la xidhiidha sidaynu xaqa shaqada iyo xuquuqda shaqaalaha u ilaalin lahayn inagoo isticmaalayna hab cadaalad oo garsoora kaana waxaa keenaya inaynu xeerarka iyo shuruucda aynu u dejinayo siyaasaadka iyo habraacyada ay noqdaan qaar naf aynu gelino oo abbaarteena iyo tilmaanteena iyo go'aan qaadashadeena iyo tallaabo kastoo aynu qaadayno ah qaar aynu marjac inoo noqdaynu u noqono si shaqaalaheedu garsoor cadaalada ay u helaan hay-adda shaqaaluhu waa HR-kii qaranka waxa weeye hay-adda ugu sarraysa ee maamulka shaqaalaha qaranka idinkuna waxaa tii waaxyihii ugu sarreeyey ee cududa shaqaalaha ee hay'adaha iyo wasaaradaha waxay isu keeneen waa taa halka wasaaradda maaliyadda oo admin finance ka ku xidhan tahay wasaaradda qorsheynta qaybaha agaasimayaasha planning ka ku xidhan tahay ayaa annagana habkaas oo kale waxa waajibaadka maamulka nidaamkuna siinaya inay noqoto hawlahaanu doonayno in la dhaqan geliyo cidda nooga mas'uulka inay noqoto waaxda cududa shaqaalaha hadday noqoto habka loo soo codsanayo shaqaalaha hadday noqoto habka shaqaalaha loo tababarayo hadday noqoto habka shaqaalaha attendance-kiisa loo ilaalinayo hadday noqoto habka loo anshax marinayo hadday noqoto habka shaqada looga saarayo hadday noqoto habka loo dalacsiinayo hadday noqoto habka caafimaad fasax loo siinayo ama fasaxyada kale sharcigu jideeyay waxa weeye ciday ka soo bilaabaysa waa waaxda cududa shaqaalaha waaxdu waxay u baahan tahay in structure-keeda la dhaadhiciyo kuma koobnaanayso agaasimo waaxidka waaxda cududa shaqaalaha waxay u baahan tahay in waaxdii tababarka performance-kii in qaybihii oo dhammi sections iyo unities si hoostaga ay noqoto oo wax ballaaran noqoto haddii wasaarad kasta iyo hay'ad kasta ka hirgalaan in structure-ka iyo qaab dhismeedka la dhaqan geliyo waaxda cududa shaqaalahana qof aqoon loo soo magacaabo oo ansixino waa labada shuruudood ku xidhan inaanu qalabkiina siino wasaaraddaas saddex wasaaradood baanu ka siinay wasaaradda deegaanka wasaaradda tamarta iyo wasaaradda shaqada computers hadday tahay printers hadday tahay furniture hadday tahay saddex waaxoodna waanu support garayna waa taageerayna waxa weeye archiveka oo ah halka xogtu taalo iyo qaybta planning-ka iyo qaybta HR-ka saddexdaaba qalab waxay u baahan yihiin waa siinaynaa weliba inaanu u saciyno inaanu gaadiid siinana waa suurtogelineynaa insha allahu tacaala laakiin maxaa ka horeeya idinkaa ka mas-uula waxaa la doonayaa buuggaas oo ah hab 16 siyaasadood ee hab maamulka shuruucda shaqaalaha in naf la geliyo oo isagoo nool ka dhex shaqeeyo hay'ad kasta iyo wasaarad kasta oo joogtaan oo looga jeedo kaliya inaynu xaqsoor wanaagsan iyo cadaalad ku maamulo shaqaalaheena tay nooga baahan yihiin waa taas ta cadaaladda ku imanaysaana waa taa waxaan rajaynayaa tababarkan inuu noqdo mid dhaxalgala taariikh wanaagsan uga tago ummadeenna idinkuna aad noqotaan waa jiraan agaasimayaal weli aanan ansixin kuwa aanan ansixinna waanu ansixin doonaa kuwa aan aqoontiisu aanay la xidhiidhin HR-ka ama wax aqoon la xidhiidha waanu odhanaynaa la soo bedelo kuwa la xidhiidha waa ansixinaynaa raggii experience ama marwadii experience le waa u tixgelinaynaa waayo experience-ku wuu ka wanaagsan yahay kana hufan yahay aqoonta fresh from the oven ee qofku jaamacadda markaa ka soo baxay labada way isu celinaynaa sidaan shaqaalaha ugu qiimeeyno waa aragnimadiisa قروحو